beelaha banaadiriga waxay tabanayaan inaysan helin saamigii ay ku lahaayeen hay-adaha kala duwan ee dalka. maalin taariikhi ah oo muddo dheer oo 50 sano ka badan doorasho axzaab u tartamaysa ay ka qabsoonto. fahamka Soomaalida ay ka haystaan dimuqraadiyadda iyo sida caalamka ay ka tahay iyo guud ahaan gobolka Banaadir waa cusub ayaa saaka u bariyay. dimuqraadiyaddu waa nidaam maamul oo markiisii hore laga soo minguuriyay Gariiga. qodobada ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah doorashooyin xur ah, sinaan, xorriyadda asaasiga ah, kala dambeynta sharciga, xisaabtanka, xorriyadda hadalka, warbaahinta. fahamka Soomaalida ay ka haystaan dimuqraadiyadda. Soomaalidu fahamka ay ka haystaan dimuqraadiyadda waa uu kala duwan yahay, wuxuuna ku xiran yahay heerka waxbarashada, deegaanka uu ka soo jeedo, iyo da'da uu jiro. waxaa jira dad dimuqraadiyadda u arka nidaam shisheeye oo aan si buuxda ula jaanqaadi karin dhaqanka Soomaaliyeed, dhaqanka Islaamka, iyo nidaamka awood qaybsiga qabiilka. habkeenay tartan qabiil waxaa lala xiriiriyaa musuqmaasuq ama ballanqaadyo siyaasadeed oo aan la fulin karin. Soomaaliya waxay muddo dheer ku jirtay nidaam awood qaybsi qabiileed ee loo yaqaano 4.5. sidaa darteed guud ahaan inta badan Soomaalidu waxay taageeraan fikradaha asaasiga ah ee dimuqraadiyadda sida cadaaladda, doorashada hoggaanka, iyo isla xisaabtanka. ugu weyn ee odayaasha Soomaaliyeed ay u riyaaqaan waa doorashada, laakiin fahamka doorashada ayaa weli Soomaaliya ku ah mid aan weli la isla fahmin. taariikh ahaan intii lagu guda jiray xilligii gumeysiga, qaybgalka siyaasadeed ee Soomaalida aad buu u koobnaa. inkastoo sanadihii 1950-meeyadii bilaabmeen golayaal iyo doorashooyin xadidan, sanadkii 1956 waxaa la qabtay doorasho lagu doortay xubno Soomaaliyeed ka tirsan golaha sharci dejinta. in ay ahayd xilligii ugu horeysay ee Soomaaliya si buuxda u tijaabisay nidaam dimuqraadi ah. fahan yar xitaa kama gaarin dadka Soomaaliyeed cashirkii ay gumeystayaasha siinayeen in ka badan 20 sano. waxaa ka awood batay saameynta qabiilka iyo musuqmaasuqa. qabiilku door weyn ayuu ku lahaa hab codbixinta iyo taageeridda siyaasiyiinta. taariikh ahaan doorashadii baarlamaanka ee Soomaaliya dhacday 30 Maarso 1964, xisbiga SYL wuxuu ahaa xisbigii ugu horeeyay. si kastaba ha ahaatee, xubnahan iyo hoggaanada xisbiga waxay si weyn ugu yimaadeen beelaha waaweyn ee koonfurta dega. sidoo kale xisbiga Somali National Congress badan waxaa lagu xiriirinayay taageero inuu ka helay qaybo ka mid ah shahabiye, gaar ahaan guddiga iyo koonfurta. xisbiga Somali Democratic Union waxaa saldhig u ahaa qaybo ka mid ah beesha, gaar ahaan gobolada waqooyi. Somali Independent Constitutional Party wuxuu taageero badan ka heli jiray beelaha Digil iyo Mirifle ama Raxweyn. United Somali Party wuxuu xisbigan lagu taageeri jiray waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan qaybo ka mid ah beelaha daaroodka waqooyiga dega. waxaa muhiim ah in la fahmo xilligaas dad badan oo ku jiray ama ku biiray xisbiyada sababo la xiriiro dagta siyaasadeed, hoggaan, ama dano deegaan, balse qabiilku door weyn ayuu ku lahaa. 25 Oktoobar 2021 ayaa lagu qabtay Puntland, gaar ahaan degmooyinka Qardho, Feyn. waxay ahayd doorashadii ugu horeysay ee golo deegaan oo si toos shacab ku doortaan iyo burburkii 1991, isla markaana ahayd doorashadii ugu horeysay ee noocaas ah oo Soomaali gudaheed, gaar ahaan Soomaalinimada aaminsaneyd iyo 1969. Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya ka mid ahaanshaha dowladnimada Soomaaliya ka go'day 15 Diseembar 2001 ayaa la qabtay doorashadii ururada siyaasadeed. 15 Abriil 2003 waxaa xigtay doorashadii madaxtooyada, halka 23 Diseembar 2003 la qabtay doorashooyinka golayaasha deegaanka, kuwaas oo ahaa kuwii ugu horeeyay ee si toos ah loo doortay. Muqdisho doorashadii ugu horeysay ee golo deegaan burburkii dowladii dhexe 1991 kadib waxaa la qabtay
25 Diseembar 2025. Dhammaan golayaasha deegaanka ee laga doortay daafaha Soomaalida waxay ka siman yihiin in aysan lahayn xubnayaasha goob ay mas'uul ka yihiin. Dhammaan qof walba waxa uu soo tartamay sidii uga mid noqon lahaa golayaasha sidii xildhibaan, laakiin runta waxay tahay golayaasha deegaanka waa inuusan ahayn gole xildhibaan. Gole deegaan waa sidii gudoomiye waax ama gudoomiye waaxeedyada degmooyinka gobolka Banaadir ayay la mid yihiin. Sida gudoomiye waaxeedyada ayay u shaqeeyaan golayaasha deegaanada caalamka. Xubinta golahu wuxuu leeyahay waax ama xaafad uu u tartamo si uu mas'uul uga noqdo. Tusaale ahaan waxaa jira dhowr dhalinyaro oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya laakiin ka mid ah xubnaha golayaasha deegaanada dalalka caalamka sida Yurub iyo Mareykanka. Waxaad daawan kartaa muuqaalo ay kaga hadlayaan sida ay ku soo heleen mid noqoshada golaha deegaanka iyo waajibka saaran iyagoo warbixinayo af Soomaali ahaan. Waxaa jira dad badan oo ka mid ah golayaasha deegaanka Yurub kuwaas ay waajibkoodu ahaa matalaadda dadka deegaanka, ansixinta miisaaniyadda, horumarinta maamulka, dejinta xeerarka deegaanka, ilaalinta hantida iyo dhaqaalaha dadweynaha, xisaabtanka maamulka fulinta ee deegaanka. Golayaasha deegaanka ma ahan gole xildhibaano camal waajibkoodu ku eg yahay ama waajibkoodu uu yahay matalaad waafajinta nidaamka 4.5ka iyo hadda dimuqraadiyadda loo yaqaano. Doorashadii dhowaan dhacday Muqdisho, doorashadii golayaasha deegaanka si rasmi ah looguma sheegin lagu saleeyay nidaamka 4.5, balse dood badan ayaa ka dhalatay sida kuraasta iyo musharaxiinta loo waafajiyay beelaha dega caasimadda. Waxa ay dowladdu sheegtay in doorashadu ahayd qof iyo cod oo ay dadweynuhu si toos ah ugu codeynayeen ururada siyaasadda. Dhaqan ahaan iyo siyaasi ahaan waxaa jiray isku dayo lagu ilaalinayo dheelitirka beelaha si looga fogaado muranada siyaasadda. Si kastaba ha ahaatee, dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo qaar ka mid ah beelaha Muqdisho waxa ay sheegeen in xulista musharaxiinta ururada qaarkood ay tixgeliyeen isu dheelitirka beelaha. Degmooyinka qaarkood waxaa lagu dadaalay in beeluhu deg ay helaan matalaad, taas oo dadka qaar cabasho ay ka yihiin, iyagoo dadaal badan sameeyay in beel ahaan wax loo dhaafiyay, sababna looga dhigay qofku beel ah ayaa la siiyay kursiga, halka markeedii hore ay ahayd in hal beel ay wax walba isku darsato. Muhiim Media waa janaal aad ka helayso xogo daahsoon, falanqaynta arrimaha bulshada iyo dhacdooyinka caalamka. Muhiim Media waxaad ka daawan kartaa YouTube-ka adigoo qaybta sarjanka ku qorayo Muhiim Media. Rukumo oo subscribe gareyso si aysan ku dhaafin barnaamijyada ka baxa Muhiim Media. Sidoo kale waxaad ka helaysaa qaybta Facebook-ga adigoo ku qorayo isla Muhiim Media. Balanteenu waa Muhiim Media iyo muuqaalo ku muhiim ah.